maamulka jaamacadda Togdheer University ee magaalada Burco ayaa shaaciyay barnaamij lagu taageerayo ardayda danyarta ee gobolka Togdheer ee aan awoodin inay iska bixiyaan fiiga jaamacadda. barnaamijkan ayay ardaydu ku helayaan waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Togdheer University. maamulka jaamacadda Togdheer University ayaa barnaamijkan oo kii saddexaad waxay ku shaaciyeen kulan ay la qaateen maamulka gobolka Togdheer. Cabdiraxmaan Sheekh oo ah madaxa kulliyadaha ee jaamacadda iyo gudoomiye ku-xigeenka boorka jaamacaddaasi ayaa sheegay inay qaadanayaan 100 arday oo 50 ka mid ah yihiin half scholar halka 50 kalena ay jaamacaddu u sameynayso qiimo dhibis dhan 25% fiiga jaamacadda. Togdheer Educational Development Agenda waxa lagu talagalay inuu ka jawaabo baahiyaha ardayda ka soo baxday secondary-ga ee doonaysa inay u soo gudubto jaamacadda kuwaas aan awood u lahayn inay iska bixiyaan jaamacadda. jaamacadda Togdheer iyadoo ka duuleysa xeerka ah in arday kasta Soomaaliland jooga uu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho waxa ku dhawaaqaysaa maanta mashaacinaysa phase-kii saddexaad ee Togdheer Educational Development Agenda kaasoo 100 arday lagu siinayo half scholar. ardaydaas kaliya waxa shardi u ah inuu dhameeyo ardaygaas dugsiga sare haystana shahaadada dugsiga sare. barnaamijka waxa nagala shaqeeya markasta gobolka qaybihiisa kala duwan haday tahay isduuyaasha haday tahay heer degmo iyagoo ardayda siiya internship program ama barnaamijka loo yaqaano gacan qabadka markii markay jaamacaddu soo siiso waxbarashada. anigoo matalaya boorkii afkoodana ku hadlaya waxa maanta wanaag iyo farxad iyo sharaf noo ah inaanu ku deeqno iyadoo laba jeer oo horeba labadii sanadood horeba ay sunno noo noqotay inaanu sanad walba jaamacadda Togdheer ay bixiso scholarship half scholarship 100 arday la siiyo 100 ka arday sida aan u soo qorsheynay jaamacaddu u soo qorsheysay 50 arday waa 50% boqolkiiba 50 kalena waa 75%. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ziriye Xayd isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo xildhibaan Rashiid Faarax oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay taageerada ballaaran ee jaamacaddu siinayso dadka aan awoodin inay iska bixiyaan fiiga jaamacadda. farxad noo ah horta kulli gobol ahaan maanta in jaamacadda Togdheer ay baahidii waxbarashada loo qabay ama dadka jilicsan dugsiyada sare ka soo baxay ay u keeneen discount in lagu sameeyaan ardaydii ka soo baxday halkaas ahayd dad yartaa aad baan u soo dhaweynaynaa. horena waa u qaban jirteen oo jaamacadda Togdheer way u soo qabatay in badan inay mataqaana dayarta ay caawiso maantana waa keenteen aad baan isku mahadnaqnay ilaaba mahadle waxaan ku bogaadinaynaa dhalinyarada gobolka Togdheer iyo qaranka Soomaaliland si aad ugu shaqeynaysaan ee daacadnimada iyo hiilka aad la garab taagantiin dadka dayarta ee aad kor u soo kicinaysaan mar labaad iyo mar saddexaadba haddana wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo wasaaradda kala nahay waan ku bogaadinaynaa waan la shaqeynaynaa. waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa مسؤولينتا أما سراكيشة جامعة University Togdheer oo runtii inoo daafray baahi ka turjumaysa ardayda danyarta waa sanadkii saddexaad labadii goor horeba waxay bixiyeen deeq half scholarship oo runtii ay ugu deeqeen ardayda danyarta ee aan iska bixin kareyn isku dhex jirta waa garasho runtii aad u wacan waan leeyahay University Togdheer waan idinka bahad celinayna haddaan nahay maamul ahaan iyo waalid ahaanba. Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.